بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Yaxye Xaashi Maxamed. waxaan ka soo gudbinayaa tixsugaana oo aan ugu magac daray isku duubni oo aan ku cabirayo dareenka iyo fikirka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya uu ka qabo dalka Soomaaliya iyo dadkeedaba. Aan ugu caqli celinayo dhalinyaradii dhawaan duubtay guurowgii lagu aflagaadeynayay madaxweynaha iyo dowladdiisaba. Gabaygiina wasiirtan ka boqoshowan. Delka gaway murtida doorayo diriirka suganta dariilay ki garanayay deeqi waanaduye kawadalayo waxilka duudka la isuraye inkastoo nin diidani jiro dooni xumaheena haddana ima damqinaya waxaa laygu durayaye dalkaygoo hagaagan jeclahay dowladnimadiise dadkaygoo midoobaan rabaa dowrkan maanta ahe ka daldoorsan maayo wataan diifu soo maraye dadkoo qaxaya wataan wax badan doonay nabadiye dugsiyada waxbarashada wataan daadahayn jiraye degmaanan tegin way yar tahay dagaaladeenaase dadkoo dhamina wuu wada ogyahay doqonna yalkiye nin hadduu qalbigu daacad yahay daayin wuu kabiye carab darab leh kama weecin karo dawga uu raboye nin dadkiisii kala geynaye dooni xumahooda ee diradiraalaana waa looga digayaaye dabka uu shidaaya baruu daarka gubayaaye inuu daayaba ilaah boon daacadda ilaahe anna doodahan qabo ma ahan dariis colaysiine degma uu nin leeyahay ma ahan duul kalena siine waa inay dadkoo dhami helaan doorka nololeed haddiise adigu waa diidan tahay waa wax ku darane dariiqaad maraysiyo haddaad duugto iridkaaga ama dabina qoosheenad garan meesha lagu daadshay adaa dalaq yiraahdo ku dhaca dowya sii qodane dib u joogsibaa ilaah boon daacadda ilaahe bal haddaan xubnihii dowladnimo dowrka wada siiyey bal haddaan wixii deeqle helay daacad ugu qaybshay bal haddaan degaanadii ku yidhi adiinku soo doortaa balsaan anigu doorkan lahaa dooni helistiisa ma inala ku diida habboon waa dabub qorane ninka gabayga soo dirahayow doodan ku idhaahdo ilaah baa dadkanka dhalshee dami xumantooda dogobbaa madaxa kaga dhacee daabu ka ilaali dibindaamyo way daashatee daawa ugu naadi dilaaliya malaal hawga noqon daalin kala geeya dugaagiyo warahbaha iyo dacowga hawloogin haddaad sadiida waa dood kaloon dooni hadalkeede donida nin saarani jabshee daqalka u gooyo badda inay ku wada daadayaan doqonka yow sheega duntaan xirnaba ka furfuri een waxbana deeqin sina inaanan lagu dayn karayn doqonka yow sheega damiir laawe aan garan xaqee dacalka dhafaya inaan loo dulqaadayn mar kale doqonka yow sheega dagaal iyo colaadan dhammaan oona dabargooya inaan diidannahay oonan rabin doqonka yow sheega lixdaas dooda miraheedii iyo dulucdii sugandhe diiwaan abwaan uu qoriyo deelkii maansada dhe midna waa dadkaad kala gurtee damaqaday labtayda daarood yayrirkiyo intaa deelku wada sheegtay intuba waa dadkaygii ma ahan duul shishayaahe waa labada daamood gacmaha oo idaadihiile midna anigu maan diidaniye waadan daalacane dameer marab la saariyo ninkaa doqon ku sheegayso waa daljira xilkiisii guto daacadu ahaane haddaase doodayada jeceshihiyo diriirna saamaysaa oo aadan doonayn inaan daacad u adeegno adunbaa xumuu ku dambayn daayin abidkaaye midna waa dardaarane dadyahow dooja dhagihiinna dad hadday islaam wada yihiin diinna wada haystaa oo ay dirqura wada yihiin duudka wada fuufay
oo dooga hadalkii orahan iswada doorin inay dirir ku rahgaani waa doqoniya xalkeede war isdaaya waataan mar hore duugnay xubihiiye war dalkiiyo dadkiinnii unaxa oo docka ilaalsha war diintii islaamkiiyo sharciga daacadu adeega war dareenka admigu qabiyo doona noloshiina war dantiina guud iyo kashira danaha gaarkiina war daryeela maatiya shacbigu daale waa horaye isku duubniba lagu helaa dowlad xog badane iska daya reer hebel watii loogu dawgalaaye